ciidamada booliska Soomaaliland xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda gobolka Muqdisho ayaa maanta si rasmi ah u burburiyay isla markaasina u soo bandhigay khamri tiradiisa lagu sheegay 886 litir oo khamriya kaas oo la sheegay in lagu soo qabtay 4 ruux oo laba haween ahaayeen halka labana ay rag ahaayeen waxaana ugu horeyn warbaahinta faahfaahin ka siiyay cadadka khamrigani Cabdi Cali Xayd taliyaha qaybta bari ee ciidamada booliska Soomaaliland iyo sidoo kale Faysal Xiis hogaanka ciidamada ee dhinaca dambi baadhista kaas oo isaguna sheegay in magaalooyinka waaweyn ee dalka intii uu taliyaha cusub ee ciidamada boolisku xilka la wareegay lagu soo qabtay maandooriyaal tiro badan waxaan maanta halkan u taagannahay ciidanka booliska maxkamadaha xeer ilaalinta inaanu maanta halkan ku burburino maandooriyo tirsigiisu dhan yahay 886 iyo nus litir khamriga loo yaqaan noociisa dry gin-ka kaas oo inooga soo gudbay dalka Ethiopia khamrigaasi waxa lagu sameeyay mataqaanaa dhalan rog waxa laga sameeyay qaarkood waxa laga dhigay maawsixa laga soo dhigay maawsixii baa la soo sameeyay bacdii baa lagu soo sameeyay furkii baa lagu soo sameeyay isagoo loo soo ekeysiyay in ay yihiin biyihii maawsixay dadku cabbi jiray khamrigaasi waxa kale oo jira jirikaamo lagu soo guray iyo qaar quruurada ku jira oo mataqaanaa saddexdaan nooc ayuu isugu jiraan maandooriyahani waxaana la doonayay ummadda islaamka ee jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu khaldo lagu baabiyo waxaan ummadda Soomaaliyeed uga digaynaa in ay mataqaanaa ka waantoobaan ka ganacsiga khamriga maadaama aynu nahay dad islaam ah anagoo fulinayna amarka taliyaha ciidanka booliska Sare Guuto Maxamed Aadan Saqdi wuxuu awaamir adag ka soo saaray in si adag loola dagaalamo mukhaadaraadka haddii noqoto khamri haddii noqoto xashiishad wuxuu bixiyay amar afa wuxuu bixiyay mid qoraal ah oo wuxuu ku faafiyay dhammaan gobolada dalka oo dhan intoo kaliya maaha haddaad eegto Wajaale haddaad eegto Gabiley Laascaanood Burco booliis waxay qabteen muqaadaraadkaas oo kale waliba taliyaha waxa uu dheer ciidanka booliiska inuu abaalmarin siinayo hadday noqoto dadweyne iyo hadday noqoto ciidan booliisba oo qaar badan ba uu siiyay kuwa khabriga soo qabtay abaalmarin oo aad u far badan buu siiyay isagoo ku dhiiri gelinaya in wax ka badan la soo qabto dhankiisa garyaqaan Cabdisalaam oo garyaqaankii xukumay ayaa sheegay 4 ruux ee lagu soo qabtay khamrigani waxa lagu xukumay iyo sida loo soo qabtay khamrigaasi oo ciidanka booliisku soo qabteen maxkamaddu iyo xafiiska xeeraantuna ay abaalkoodii mariyeen xukunsanayaashii khamriga waday ee lagu qabtay iyadoo maxkamadda gobolka Muqdisho ay ku xukuntay xukunsanayaasha min 4 sano oo xariiq ciqaabeeda iyo 5 milyan oo ganaax maaliyadeed waxa kale oo maxkamaddu ganaaxday gaarigii Land Cruiser-ka ee xukunsanayaashu khamriga ku sideen gaarigaas oo lagu ganaaxay qiimihiisa 5%. waxa kale oo maxkamaddu ganaax digniin afka ah siisay gurigii khamriga laga soo helay oo isaguna digniin la siiyay afka ah mulkiilaha guriga si uga waantoobo waxaan halkan uga mahadnaqnaa ciidanka booliska oo had iyo jeer ku daba taagan dambiilayaasha doonaya inay dalka magaraansaay dambiyada mukhaadaraadka ka sameeyaan ugu dambeyntii Cabdi Qowdhan Cabdi gudoomiyaha maxkamadda gobolka Muqdisho ayaa madasha uu ka hadlay waxaanu sheegay wax galoo jira way aragnimada iyo shaqadan oo hayna waxayna bartay dambiyada dhacaya ay tuugadu ugu yartahay ilaa dilka dadka geystaa boqolkiiba 90 inay yihiin dadka daroogada isticmaala marka uu keenayo sababaha iyo xumaanta iyo fawaaxishka khamrigu tirada inta laga inay soo geliso waxa weeyaan waa disaster waa faqar bay noqonaysaa ugu dambeyntii waxa xusuusnada in khamriga halkan lagu daadanayo ama lagu burburinayo uu yahay khamrigii abid ugu tirada badnaa ee mas'uuliyiinta maxkamadda gobolka Muqdisho ciidamada booliska iyo xafiiska xeer ilaalinta gobolka Muqdisho uu soo bandhigo وخضر إسماعيل محمد خضر نبال يا إسماعيل محمد وركب مقبهية عن مقبض عصر فرتيفي محكمة دهورتيدا